تيدين نوفمبر حق بدعين بدأ dalka waxba kama dhicin dalkaba waxba kama dhicin ilaahayna ma tuso bismillaahir rahmaanir rahiim bina sana amrudunya wa diin ilaahi ba mahad subhanahu wa ta'ala waxaan mahadnaqayaa telefishinka qaranka ee gobolka saaxiil iyo mukhtaar oo habeen maalin bulshada u soo tibiya xaaladaha dhabta ah ee ka jira gobolka iyo degmadaba mukhtaaro alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta iyo maalmihii hore iyo maalmaha dambe ilaahay waxaan ka baryaynaa inay berbera sida ku suntan tahay ahaato waa goob nabadeed waa gobol nabadeed waa dan nabadeed waa dad danlaya oo xamaasha oo ay u kala soocan tahay siyaasadda iyo noloshu ay kala soocan yihiin marka alxamdulillaah magaalada berbera social media ma ka maqlaynay 13 Noofambar waxaase laakiin berbera sida shalay waxay bay maanta noo tahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa in nabadgelyada iyo deganaanshaha inaan noogu wada markaa sideedii waajibaadkayga shaqaan gudaynaa bulshaduna waxay u kala fooftay danahoodii iyo shaqadii daawalbay ay wadan jireen horta mucaaradku wuxuu doonayaa kursiga uu madaxweynuhu ku fadhiyo oo markuna uu la tartamay iminkana wuxuu doonayaa wax kale marabada inuu la tartamo ha yeeshee bulshada waxbaa ka yara khaldanoo madaxweynaha qaranka waa lala tartamay dee may dooranin taageerayaasha xisbiga wadani may dooranin kuwa cidna may dooranin cod may siinin codna ka sugi maayeen siiyaan laakiin isagu wuxuu leeyahay waxaanu diyaar u ahay inaan doorasho galno inagoo raacana sifaha sharci marka haddii iminka aniga kuwii doortay doorashada anigay doortay haddaan ninkii uga codka badnaaye gobolka saaxiilan ahaa haddii taageerayaashoodiisa soo tubaan ay yidhaahdaan waanu doonaynaa maayirkaanu doonaynaa dee maayirka iyagu ma siinayaan maayirka golaha deegaankaa siinaya taageeruhu codka meel buu gaadhsiinayaa marka annaga kulli maananu arkayn wax shidaa de gobollada kale waa laga yaabaa inay dee shido u arkeen markaana waxaan leeyahay taageerayaasha wadani way mahadsiino dee waxay cabdiraxmaan bay la doonayaan inuu madaxweyne noqdo taageerayaasha xisbiga kulmiyana iyagoo sii laba jibaarmay waxay la doonayaan madaxweyne maxamed muuse biix cabdi inay mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad ay u doortaan saasaan leeyahay anugu dee horta loo dayrin maayo marka horeba wuxuu haystay shacbiyad meel fiican soo gaadhsiisay oo dee xisbiga kulmiye dee waa soo dhadhaweeyey iminkana taageerayaashiisii wuu haystaa waxaan is leeyahay un buuqa wax kaga luma mooyaane waxba ugu soo kordhi maayaan marka waxaan leeyahay doorashada sida aynu ku caalamaanay waxa weeyaan inaynu qoriso dhiib noqoto oo dee cod lagu kala helo marka haddee codka wixii ka baxsan waa nin iska yidhi un isagunbaa iska hadlay midaasuu ka dhurmayaa waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga wadani dee dadaala oo dadka kasbada oo xisbigan kulmiye dadka kala wareega haddaad doonaysa haddayna xogka qabataan laakiin way jabaysaayo way qarxaysaayo way ba'aysaa mid shaqaynaysa maaha waxna inaga qarxi maayo waxna inaga jabi maayaan waxaan ku caanamaalnay inaynu doorasho wax ku kala qaadno doorashaanu madaxweynuhu ku yimi doorashaanu ku tegaya insha allah waa sogootinayna hadduu cod waayo halaa ka bax baa leena madaxweyne lagu dooran waaye dadka ugu adag bay ku arkaan adiga xisbiyada mucaaradka ee gobolka marka la joogo saaxib waxay kugu eedeeyaan inaad xisbigooda aad awoodda saartay xisbiyada mucaaradka oo aanay aada uga shaqaynin degmada inaanay dhaqdhaqaaq ka samaynin arrimaha gudoomiye adigu ma aaminsan tahay ma kudigi jiraan hayo ma xidho mana dilo mana dhibo dhibaato kuma hayo laakiin qulubta dadkaan ka qabsanay dadka qulubtooda qabsado ma leen wax kale iskuma hayne dawaynta qulubta dadka wax lagu qabsanayaa waxa weeyaan inaad noqoto ummaddu mid ay ku aamini karto mas-uuliyadda ee ummadda qofkan u hayo oo ah inay dadku kaa helaan wixii ay kaa filayeen ama ay kaa sugayeen marka anigu markan gobolkayga iyo degmadada ka hadlayno waxaanu leenahay dadka reer saaxil sida majority marka horeba kulmiye u hayeen imikana kulmiye u yihiin weliba kulmiye waxaa ka saracnay 9 ururba imika la wadaaba isagunbay ka saracneenun oo markaynu xisbiga wadani nahnoo kale isaga waxba kamay saracnin laakiin 9 urur kaleba isaga imika diyaarna wuxuu iyagu 9 ka jabeen inuu markale doorasho galo doorashada diyaar baa loo yahay 13 Noofambar xaq badcin dalka waxba kama dhicin dalkaba waxba kama dhicin ilaahayna ma tuso